إنه يعني أدوك قدر دولية إنه استعمال سحرديدو عدو الصومال يا وطقنا هذه بيعادوا قلت الصومال صرت الصومال إنه أيضا عدو أسكوع الصومال أيضا عدو أسكوع يعني أيضا توصي صح أوكي يعني أيضا الصومال حق إسكالكتين يا عدو الصومال لحظة حق إسكالكتين نحن ضد الدولة بدل ما دحدودا ما markii laga reebo dhaxdooda cadawga koowaad waa Ethiopia iyo Djibouti waliba Saciid Maxamed Gelle dadka reer Djibouti ma oranay saas waa cadawga koowaad waa intaas moogtay waa Djibouti iyo Djibouti waxay ku tahay cadawgaaga cadawga koowaad waa cadawga ummadda Soomaaliyeed waay يا شعب كمورنا شعب كمورنا يعني وانكوش شيء waxay ku qorantahay ku sheegay isdhegeyseen aad markaas dhegeysan Djibouti Ethiopia waa ogtaa 12 gobol oo Soomaaliya kaaga maqan oo waxa weeye haddana waxay sii rabtaa inay sii xagga idil Djibouti baa cadawga dhahda balqay Djibouti anu waa kala saaray shacabka Djibouti waa dadka la dulmanahay la haysto masaakiinta waa dadka waxa dad masaakiin la haysto waa sida aad u sheegto Axmed Madow oo kale loo haysto waa laakiin ninka meesha fadhiya ma rabo Soomaaliya inay nabadgelyo ka dhacdo ma rabo inuu hadaa la ku rooyahay madaxda Soomaaliya ugu sarreeyay isaga hostage ku haysta ma rabo maanta qof team gobolka Soomaaliya ka imaad inaad armay dhaasa meera Soomaaliya ku weydiina walaal weydii waxa rabtid aniga maya Muqdisho ku dhashay aniga laakiin Puntland ma ka soo jeeda ha laakiin aas Soomaaliya waxaan ku sheegaa marka fiiri Saciid Cabdullaahi Dani fiiri waxaan ku sheegaa سعيد عبد الله الدني عبدولي قاس فروري iyo Ismaaciil Cumar Geelle deegaanada ay ka soo jeeday dadka degan yaa dib gaarsiiyay markaan u hadlana fiir adigu hadda individual baad u hadlaysaa qof personal baad u hadlaysaa laakiin anigu waxaan ka hadlaynaa as Somali nation baan ka hadlaynaa dowladda Soomaaliya ana ka hadlaya adigu kam adaaba individual ka hadlaya ma dowladda Soomaaliya aan ka hadlaynaa anaga inaadir adaa hadda magacyo soo qaatan magacyo ma ku soo qaadan madaxda ka hadasho waxa dowladda Djibouti shacabku way fiican yihiin aad tiri laakiin dictator baa haysta ninka halka fadhiya ma rabo in Soomaaliya ka nabadgelyo ka dhacdo baraada warabood adoo dictator wax ka sii liita ay ku haystaan hadii dictatorku ka sii fiican yahay hadaa dictatorka tilmaantid ka war waa same shit ma ahan marka ugu horeysa waa ina cadawgaaga aad moor aragtaa xaqiiqada ah aniga hadda si marka cadawga ma aanu cadow ma arki karo waxaan ku arki karin anina la haysta ma baahay ba wadaba laga haysta ilaa madaxweyne ugu sarreeyay baa la haysta wadan waa kaaga baxay marka sii socod cadawga intaan hadalkii ugu gudbin su'aasha inaan jiyo ku weydiinayo waxay tahay Faroolo iyo Dani iyo Caligaas cadawga ay Puntland ku yihiin iyo dictatorka ay Puntland ku yihiin noo faafaa dadka u faafaa okay so waxa cadawga ay ku yihiin baa waxay tahay number 1 dad shacab ayaa meel lagu xareeyay oo dawladii laga dumiyay waxa la yiraahdaa dadkan shacabka ah waxa u sheegteen inaad dawlad u tihiin waxa la rabay inay dhahaan dadkan shacabka ah war dawladiina waa la idinka dumiyay annaguna isla qabiil baan nahay dawladda inima nihin number 1 number 2 bulshadiina sidaan ayadoo ku baaba'ayso ayaa annaga waxa idinka iibinaa daraag qaad khamri iyo wax la mid ah ayada oo aan ognahay inaan Soomaali aqoon inay wadin bambuugaad iyo nasiib soo samaysay baa waxa idin kaga dhignaa aqoon waa idin lay gareen wixii yar oo dhaqaale ahaa oo meelihiina ka soo baxana annaga nagama badna annaga ayaa waxaan guryo uga gadanaynaa Canada iyo Norway iyo Australia iyo Holland aragtidaada dadku ma waa xaqiiqada jirto waa xaqiiqada jirto waa waaqac dadka gali kara oo aragtidaada dadka u sharaxinay saad u qabtid dadka u sharaxin laakiin waaqac shay okay marka hadii aan cadawgaaga ku sheego dan waaqiciga waa ka fogahay ma aho saarana waxa ku tahay reer Puntland oo dadka iyo dalka jecesha dadkana in dhaha laga tuuraa rabtaa oo aan lagu sheekaysin iikaada adeer nin weyn oo oday ah tahay madaxweynaha hadda imaanaad ciyaal baan hawlaalo ma hadda iikaada horta waxa ku weydiinayaa madaxweynaha hadda jooga oo aanu hadda aan aaminsanahay inuu madaxweynaha Puntland oo ugu wanaagsanaayahay oo ka shaqeynaya dhulka iyo dadka سيد دتك معناها فيري قرات كدتك واحد راسي فانا وحو شرح وعدوغاga Dani سيد دتك oo isagu maamulo madaxweynaha say uga dhaadhaxsiinaysaa maxaa ka wada ereyga dad baa meel lagu xareystay xira maxaa ka wada xira waxa ka wada fiiri dalku waxa la oran jiray Soomaaliya
populationkuna waxay ahayd population Soomaaliyeed waxay ahayd in wixii ayagu ay leeyihiin wax loogu qabto iskuulaad loo dhiso daraaga laga qabto hubka laga caruursho iskuulaad loo diro wiilka iyo gabadha qaangaarka noqda ay income yeeshaan si bulshadu ay u taranto daaris waxay ahayd in ma injin waa fahmay injin shaqas injin wax ka hadlaysa fiiri laakiin sidii ma sameeyeen injin uu ka injin waxa uu hadlaysa si dawlad meeshaan ma jirto in adeer ما يفرس ما إبراهيم وكذا هل يروح ولكن واحد فهم الشيء كذا سووا الله يا عز ودن دولة إن هذا ودن كواكلة تجي صدق صنع بعد الصومال دجال كوشرتي والله كلا عرري نولا بور بوجلة بور مركن نولا بالله جلي ده نبت إنه كفرنتها ده نولا بور تيسم وجلي وحلا يا هم معمول حصل يسوي كنا بتجلي وأكتر دولة قبل هذا هالك وكنا بتكلم أمام بيكوها لين وحوي سيستم باكتشره marka adiga hadda waxa liidayso oo inaad bensaf politics crisis waa jira oo Soomaaliya waa haysta oo crisis oo siyaasad ma weyn haysataa oo waxa la geela hasha weyn markay roorto aaranka maxaad moodaa madaxda u sareysa Soomaaliya wada aragtaa maanta xaaladda ku shaqeynayaan iyo dawladda la dhistay wixii crisis weyn haysta laakiin dadkii markii la kala tagay dadka maanta badbaaday dadkan dawlad goboleedada ama Hirshabelle ha aado ama Galmudug ha aado ama Jubbaland ha aado meesha lagu badbaaday waayo maanta dadku kala dameyntu ka jirto marka ma waxaad rabtaa in la isla wada jabo oo waxa weeyaan halaagii dhacay looma kala harin miyaad dadka ugu marka u hambaliyeen lahayd oo dhibtii ka dhacday xamar markii dagacayo la kala cararay oo baladu dhacday dhibtii wali hadda Muqdisho ka taagan tahay 24 kun oo ciidanku Amisom Afrikaankuna dul fadhiyo ma taasa waxa leedahay marka system baa ka jiray oo taasa ummadda Soomaaliyeed ugu hambaliyeenaysa ama waxa leedahay taasa system ninkan buurtaas uu tagay dad buu dhaartay maamul goboleed buu dhisay waana dad Soomaaliya siyaasad xumo way dhici kartaa oo dadku waxa way siyaasad xumo waa ku raacsanahay taas in waxa way political crisis jiro laakiin dadku way ku badbaadeen kala dameyn baa jirta iskuulaad baa jira dadku waxbay ku bartaaneen amni bay ku heleen isbitaalaha ka jira holagan aad sheegayso iyo baladan aad sheegayso wadanka kama jiraan inaad laakiin siyaasad xumo weyn haysataa hawada laga haysto inkaar haysato oo madaxda ugu sareysan la haysto marka taa way isku raacsanahay markii adigu dabkaas shidayso balada ma garan karo meeshu ka imaanayo aad ka hadlayso adiga فيري walaalkiis team dhibaato jirta fiiri hadii aan marna survey lagu dirin oo aan lagu oran qofkaas mujtamaca dhibku u geystay assessment ku soo samee ma garan kartid aan waxaan ku oran lahaa dani gas farole inta u tagtid akoonadooda lacagta ku jirta oo shacabka reer Puntland laga dhacay inta ka soo qaadid waxaad fiirisaa inta shacabka rafaadsan ay u qaban karto 2 milyan oo dhalinyaro ah oo cirka gacmaha u taagaya kharash la'aan dhibaato la'aan bay mid kasta waxay u dhisi kartaa aqal inuu guursado oo sanadkii ay u dhalan karto 200 milyan oo qof markii eliminationka lagu sameeyo il kala wax laga tusinaya anu markaa ku leeyahay fiiri raggan adiga aad u taqaanid maamulay dhisteena waa Soomaaliya la kala tagayo walaal hadda waxa waay ogahay inay wax yar jiraan oo iska qalalaasa oo adiga lagu baabi'iyay adiga wax laga soo qaaday marka sheekeynaysid walaal wax yar oo hadda qalalaasa iska jiro wadankii hadda waa hore lagu kala tagay ummadaadii dhalan lahayd bana isbaara loo dhigtay inaysan dhalan wixii khayraad ay ku dhalan lahaayeen ba Australia loo rartay iyo maxaa la yiraahdaa Canada iyo ba loo rartay marka waxa tirada mid waa ka yeelaya walaal meelaha dadku ka hadlayaan iyo qarankii burburay ma gaarsiisni kama hadli karo mid waa ka yeelaya laakiin da igu haysin walaal hadda waxa way dhibaato yar baa dhacday waxa waagi la kala tagay da ku haysin waxba iima sheegi kartid meesha ka hadlayna ma garan kartid dhibaatada dadka ku dhacday ma fahansanid maya waan fahansanahay meeshaada iska gabayo adoo baaba ay dadka waxa ku tiraa Ismaaciil Cumar Geela walaal dhib nagu hayo ha ku dhacdo gantaalka Mareykanka waxa kama hadlayso walaal okay inaad reemudigal marka wax yar waa ku dhageystay inaad fiiri waxa sharxaday oo dhan inta sharxaday oo dhan waxa waa jiraanin oo dhibaatada Soomaaliya oo dhan bay ku dhacday qaran baabaay baa tiri anigu waxaan aaminsanahay dawladda centralism-ka ah oo wadanka baabaysay dhibaatada ay samaysay in kaartoob halkaas inay ka timi kaas waad ogtahay dhibaatada dhacday markii dawladda Soomaaliya dhacday dawladda militariga centralism-ka ee wadanka haysatay waxa weeyaan oo dhibaatada ka samaysay oo dadka laysay culimada laysay Soomaaliya hal meel one day Soomaaliya dictator haysan inagu waxa way daas way dadka Soomaaliyeed maanta aaminaa darada in la soo imaado ama la soo aamini waaynaada Soomaaliya meel bay ka dhisnayd one day ba afarteeda koona dab ka baxay culimadii baa la laayay dadkii Soomaaliyeed baa la rusheeyay kuwaasun la siiyay ciqaabtii iyo inkaartii dhacday dumarkii baa la laayay ciqaabtii iyo inkaartii centralism-ku inoo ka tagay dawladda militariga inoo ka tagtay way Soomaaliya waxay ka degilaadahay maanta inkaarta haysata
inaynu isu soo noqono quraan akhrisano la iscafiyo oo dadkii la yiraahdo war cafiyo masaabax aniga only the wage-ka ugu horeysa page-ka ugu horeysa oo la furi karo naxariista taas ay ugu horeysa laakiin dhibaatadii dawladda ka tagtay ayaa wali Soomaaliya inkaarta haysatay inaada dadkan waa dad inkaaran inkaartana waxay ka timid dadkii dawladdii wadanka haysatay oo militariga ahayd intii ka dambeysana kala roor maray dad baa waxay ku doodaan dawlad fiican baa dhacday oo Soomaaliya laga aqoonsan Soomaaliya dawlad lama yiraahdo inaada dawlad shacabkeeda la inayso military waxa aaminsanahay دولة لا أنا let me finish أنا قوة وحاسو فيري هذه قلت المعمق فيري وحال أدي محمد سياد برو ما يمحسن ما يدعو كان لا أنا سومالي كان لا هيستوري أنا هذا هل سكن ما يوم كل بيا هذا الكسوجين هذا وحيرها مودي قال marka in aad dhibtid dhacday halaagii dhacay looma kala harin tii waqooyi ilaa koonfur ka dhacday in aad oo dadka la laayay gabdhihii batariga lagu guray in kaartu dhacday bilaayo dhan baa dhacday in aad la dhaxlay maalintaas dadku kala careen marka anu waxa aaminsanahay in lagu success ay noqoto dadka Soomaaliyeed inay dawlad goboleed dhisteen oo waxa weeyaan dadku bal isbadbaadiya naftoodii laakiin hadii kale looma kala hareen adeer maanta saas loo guban la maantana meel fiican baa adduunku maraya dawladda Soomaaliya ama meesha hadda dawladnimada ay haysano meel fiican bay maraysaa oo waxa weeye laakiin dhibti baa laga soo waqsan leh wax yar oo ugu dhiman oo kaliya siyaasiyiintu garan laayeen baa jiro dib u heshiisiin dadka in la soo celiyo dad baa wali wax tabanaya dad baa la baabiyay dad baa adduun lagu baabiyay dad baa diyaarad lagu rushay dad Soomaaliyeed way inaadeen marka niyo aniga ima amaani karo dawlad baa jirtay iyo dawlad baa qaran baa jira qaran ma jirin adeer baaba iyo inkaar iyo cadaab baynu ka dhaxlay dawladda runtan ku sheegaya walina waatan dadka Soomaaliyeed maanta haysata ay ku degilaayihiin casuumadeena Soomaaliyeed dadku ka baxayo maanta afarteeda koonay til dadka la baabiyay shacabka ahaa qabiil isugu jeediyo balaayo marka in adeer waxa dhibtaasuna way qabnaa nimanka siyaasiyiinta ay maanta kursiga noo joogan waa ku raacsanahay mid inuu tirasigiisa ninku wato jeebkiisa buuxsanayo uusan maanta noo keer abud waxa way Soomaaliya uu sameeyo dadka shacabka iyo dhalinyarada uusan ka fikireen laakiin wandayba waxa imaan doonta insha Allah mid daacada oo insha Allah mid daacada oo waxa way u adeega dadka maalinba waa maalin anu waxa way waxaan qabaa rajo weyn baa Soomaaliya ka qabaa wanday in Ilaahay farad u soo furi doono laakiin walina hadda aamina daradii baa taagan oo tii shalay dadku soo mareen madowga qabriga godka madowbaabay dadka Soomaaliya isku aamin laayeen marka in adeer waa ku soo dhameeyay laakiin waa gaarayna insha Allah dadka Soomaaliyeed maanta madaxda Soomaaliyeedna wali xaq ma fahansana laakiin xaq waa dheer yahay in adeer hawl badan bay u baahan tahay Soomaaliya wax baan dib u heshiisiin in wax badan waxa way damage ka dhacay in la fix gareeyo u baahan tahay dadka boogay la dhayo marka ka bacdi baa dadku soo imaan karaan adeer waana mahadsantahay iyo meesha ka hada shaqo kala ma hadlay meesha ka hadlaya waxa anigu ku leeyahay caruurtaada dhibka hadda ku haysid fahan oo ka qaad ilaahay amarkiisa waxba imaan doona insha Allah fiir hayga dhaxjiran wax yar fiir walaalkiis hadda saacadan oo aan joogno qaadka Soomaaliya imaada madaxda Soomaaliya joogta percentage ku leeyahay mataqaana ما قرن كره هنا هذا بنته حرام وايا Soomaaliya wax ma haysan marka ما قرن كره ده بس انت ادو waxba iska ما iska baabuna adu been ha sheegin hadda ruuxa والله بتعالى وابا kala qaybsaday intee meel isugu tageen baa nin kasta wuxuu yiri qaadka gorow imaanaya percentage ka san ka rabaa qaadka xamar imaanaya percentage ka san ka rabaa firi ma waysan ahayn daraaga oo adduunku iska ilaaliyo oo South America ay ka soo Mareykanku iskaga difaaco yiraahdo daraag baa la ii soo gelinaya ma la socotaa nimanka firi daraaga Soomaaliya la geliyo nin ina adeerkaaga intuu soo qaado Kenya ka soo qaado cunugaaga inuu sariirta ugu geeyo ma ka warqabtaa oo cunugaaga oo drug hair ka dhigay oo noloshiisa baabi'inay soo lama socoto sidaas Maxamed Siyaad Barre 1995 dhintaa marka itusane caabud waa itusane saa waxba oolan oo diyaaradihii Ethiopia waaga ay duqeeyeen tangiyada ay duqeeyeen hareeraha ciyaalku ku ciyaaraan oo banku ku qarxa ay tusanaysaa adaan cunugaaga qorsagaara ku haya oo sariirtiisa waxa ugu geynaysaa qaad wixii gabadhu ku guursanaysa adaa Canada la aaday adiga hadda sii burburinayo oo inta lacagahoodii ka aruursatid ama imaaraad u keentid dhahayo dekada ka cashuuro meel kale ay tusanaysaa marka waxaana qaban kartid right now markii lagu yiraahdo caruurtaada dhibkan ka qaad haneefsadeene waxaa la Ismaaciil Cumar Geela Allah gantaalka Mareykanka ha ku dhufto meel kale ay tusanaysaa tan waxa isleedahay ma awood waana in caruurtaadi waxa saa u galiyana waa in adeerka Xasan Sheekh marka aadid iyo xamar waa sidoo kale marka Hargeysa tagtid waa sidoo kale ninkaasi ma u jeedo adigu laakiin taada arag haddii maanta aan raahno madaxda lacagaha ay ka bilaqaysteen dalka dib ha loogu celiyo dhalinyaro Soomaaliyeed ama dhalinyaro tolkaaga ah baa guryaha ka soo baxayo neefsanaya
neeftina maanta waxaa ku celinaya dad adiga madaxa u taqaanid oo adiga tolkaaga haddana sii ah meel kalena waa aadaynaa marka aniga ujeedada waxaan ka wadaa qofka Soomaaliga ah gudaha ha fiirsho reality-ga ha arko qofka Soomaaliga wuxuu madaxa kaga taagan yahay ciyaar Soomaali oo dhalan lahaa buu madaxa kaga taagan yahay oo waliba tolkiisa iyo ehelkiisa waa khiyaanada ugu xun waa maya waa maasanta dood aan dadka kale wax ka siino marka xoogaa bahashu waa wiilkaaga waan dhegeysanayay horta sideeda waxaa la rabaa haddii qofku negative ka sheekeeyo mar inuu positive ama xal kale dadka u sharaxo waxaa la rabaa in dood kasta oo aad media la timaado aysan negative kaliya noqon macnaa qaab qofku mataqaanaa loo raaco lama garanayo ninka odaga hadda aan su-aasha weydiinayo waxaan malinayaa golayaal badan baan iskugu nimid mar kasta aan arko Soomaaliya siyaasiyiintoodu waa qurun waa daba dhilif waxbay cunaan waa tuug waxaa moodaa xaalad mataqaanaa negative inay mar walba ay doodiisu tahay su-aasha marka waxa u weydiiyey anigu hadda tusaale waxaan usoo qaaday waxaa loo soo qaatay Puntland wax badan oo aan ka jirin oo khiyaaliyan odagu hadda waa noo sharaxay waxyaabaha waxaa ka mid ah inaan anigu iraado nin madaxweyne ah jeebkiisaan ka warqabaa inta ugu jidhay intuu diray inta meel u taala waxaas ma ogtahay wax hadda dadka laga dhaadhicin karo maskaxdooda laga gadi kara ma aha haddii adigu qofka cadifad ama ay kala dhaxaysa ama doonaysid inaad negative garaysid shaqadiisa iyo wuxuu hayo waa wax adigu kuu gaara laakiin kiish been ah qofka korka lagama saaro waan soconayn markii dalku burburay dowladii hore iyo baabkeedii galmay laakiin dalkii markuu burburay Puntland mandaqadii ay ku noolay state bay ka samaysay state-kii ka samaysay faa'iidadii dadkeedii bay anfacday second waxay samaysay Soomaaliya ayay anfacday oo raadisay inay wax noqoto macnaha waxaan ka faa'iidadii laga helay Puntland baan rabaa inaan dadka u sheego markii iyadu ay samaysay mandaqadii ay ku noolay oo waliba mushkulada badan ay markaas soo food saareen waxay isku dayday si dadkeedu amni iyo xasilooni ugu noolaadaan marka ay hagaajisay ayay tiri anaga kaliya noolaanayno Soomaali aan raadino waqtigii ku baxay iyo qarashkii ku baxay iyo xooluhu ku baxay waa aragteen ka soo gudub waxa hadda fiilo Soomaaliya ka nuxnuxsanaya ayay keentay marka intaa ka bacdi Puntland inta way dhismaysay maxay marka ayada dadkeedu u samaysay horumar u samaysay amni u samaysay muxuu ahaa waxbarasho u samaysay waxa la rabaa reality aan laga cararin waqtiga Soomaalida garan dadkeedii maanta Puntland halka meel ee Soomaaliya ka nuxnuxsanaysa ee amni ka jiro oo waxbarasho ka jiro oo muxuu ahaa jidadkeeda aad arkaysid ilaa iyo inta ay gacanta ku hayso inta oo kun ah qofka koonfur ka yimaada gaalkacya markuu cirifka cagta soo saaro ilaa boosas alxamdulillah ku maraya iyo meeshan muxuu ahaa xaaladda amni ahaan iyo jid qofku muxuu ahaa u hagaagsan adar anagu dhulka aan joogno wixii laga qaban karay oo laga shaqeyn karay halkaas la mariyay dhibaatooyinka amniga soo food saaray iyo argixisada iyo jinikajaanka waa arag ayadoo ilaahay kaasha mataqaanaa garab weydiisanaysa ayay iskeed iyadoo kaligeed u aaday halka Soomaali dhulka Soomaaliya kala baran yahay gaalkacya badha kala bar Puntland baa haysta kala barna 5 maamul goboleed iyo 3-4 maamul goboleed iyo fiilo Soomaaliya isku raacsan waxa ka jirana waa ognahay horumar kama jiro ma been baan sheegaya ama dadka dhan way og yihiin moogtaa wax wadooyin ma dhisna amnigu si way og tihiin xaalad deganaansho kama jirto oo waxa ka jira muxuu ahaa wax ka jira way og tihiin marka anigu Puntland ay joogo ninka soo maray ee amnigi ka shaqeeyay ee dadka inay muxuu ahaa wax bartaan ka shaqeeyay oo jidadka u dhisay aniga intii halkan soo istaagay yiraahdo dhibaatada uu kugu hayo hada iska qaban lahayd waxaas qofkii dhageysanaya khaldan badii waxaas anigu ma arkin meesh anaa joogo ma ogtahay anu madaxweynahayga yahay waxa ka jirana waan ogahay Puntland dadka yimaadana way ogyihiin waxa ka jira marka waxa la rabaa haddii sideeda la dhaliilayo siyaasadda guud ee Soomaaliya waa ognahay waa sax political stability kama jiro Soomaaliya xaalad siyaasadeed degan kama jiro muxuu ahaa amni hagaagsan kama jiro siyaasadda guud ee Soomaaliya siyaasiyiinta haddii la isku soo qaado eedaas waa eed sax oo meel istaagaysa laakiin state-ku
dee adeer wax kale ma qabteen inuu deegaankiisana hagaajiyo amnigiisa iyo waxbarashadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa ka shaqeeyo Soomaaliya wuxuu ka qaban karaan ka qabtaa asaga waajibka saaran yahay laakiin Soomaaliya inuu hagaajiyo waajib kama saarna muxuu ahaa kaligiis hagaajiyo marka waxaan qofka markaa su'aasha weydiin inay wax ka faa'iido oo meesha aan joogo iyo xaaladeeda sidoo anigu aan mataqaanaa Yurub joogo qof ii sharaxo yiraahdo adeer meesha saatay tahay dad baa qool ku xiran dad baa waxa la cunay hadda Puntland madaxa soo maray musuq muuqda oo ay sameeyeen way arkayseen wixii qarsoon waa meesheeda laakiin musuq toos oo muuqda ku aragteen anigu kuma arag halka Soomaalida siyaasiyiinteeda tusaale kale hadda haddii siyaasi lagu dhaliilay musuq tusaale waxaan soo qaadan karnaa hadda Xasan oo kale Xamar oo kale musuq dee xataa caadi laga dhigayo muuqda baa noo muuqda oo hantidii dadka la goobayo oo aan khasnadii dawladda lagu shubayn oo muxuu ahaa wixii adduunyada ka imaanaysa laga yeelayo dee waxa muuqda laakiin madaxda Puntland wax anaga noo muuqdo oo layfa oo ay markaas sameeyeen oo aan leenahay saas u kala goosteen oo muuqda wixii u qarsoon oo dee ninka siyaasiga ah waxaysanay waa meesheeda maana arag laakiin waxa kaliya muhiim ah nin Soomaali oo siyaasi oo musuq daynaya horta ma jiro laakiin waxa ugu fiican ninka hadduu rabo waxa waxeeyay wixii uu wax qabta meeshii wuxuu qabta uu joogay ninka meeshii uu joogay wax ka qabto ka baa amaan leh wuxuu cunayaan ha cuneen laakiin waxa daran ninka leefaya meeshiina burbur iyo baaba u daaray waxba ka sameeyeen kaasa daran marka nimayo madaqadan hadda anagu aan joogno waa inta aan soo sharaxay ayadoo ay saatay diyaar wax ula tahay Soomaaliya inay hagaagto oo wax la qabato hadda shirarka loo aadayo oo wax noqoto oo Soomaaliya wax laga dhigana diyaar u tahay adaro marka negative-ka faraha badan oo muxuu ahaa qof wixii jiradii anigu waan qiraya laakiin wixii aan jirin meeshaan ka saaraya intaas aan maxaa u kacay inaan sharaxo oo ka hadlo hadalka mar rabo inaan badi waana ka baxo inta aan ka dhaxlay hadalkaaga waxa kamid ah meesha aan joogo musuqmaasuqa ka dhacayana ma arki karo 800 oo kiiloomitir xasan joogana musuqmaasuqiisu indhahaygu way arkaan waa u jeedaa marka kale dadka kale u deynaya inaan hadalkaaga intaas kaliya inaan dhaha un baan soo qabsado marka sii socda bal galti waxaan ma yarkii waa ka maqayaa ma Charles soo dhaw waayeel la soo qabtaniyo waayelkan soo qabta olka qofkii ku xiga ku socdo yarkii waa maqayaa ma riyo waa maqayaa ma riyo ma maqan uu joogaa laakiin waxa waaye bisi baan malaynaa ma arrimo kale oo classification kale sanaya Ibrahim 800 oo kiiloomitir musuqmaasuqa ka dhacaya indhahaaga way arkaan 5 mitir oo aad joogtid musuqmaasuqa ka dhacayana uma jeedid micnaha waxay noqonaysaa waa arrin markii la qiyaaso aad u dhib badan kan kale oo Xamar joogana musuqmaasuqa garowa ka dhacayo arkaa oo 800 kiiloomitir u jirta kan gudihiisa ka dhacayana uma jeedo anigu waxaan ka hadlayaa bulshada Soomaaliyeed meeshii ay ahayd inay tagto iyo meesha lagu hayo bulshada Soomaaliyeed waxay u ciqaaban tahay nin la yiri waa ina adeerkiin oo lagu sidkay sidkasho waa taqaana Soomaa waa lagu sidka noo sharaxana adeero 1 iyo 2 iyo ka nooga dhig aniga hadaan ogeyn waxba ogeyn xoolo ah meesha iska joogo ii sharaxaadan ku doodayaaye waxa tiraada waxa soo qaatay ka soo qaatay calaamadii iyo calaamad ilaa inta waa ku calaamadii bulshadan guud bulshada horta waa la kala qaybsaday fiiri qayb kasta meel baa lagu xiraa waxaana isbaara loo dhigtay dantoodii guud danta guud waxa waaye 35 sano ayaa meel waxaad ugu xiran tahay nin ama inuu madaxweyne kugu noqdo oo kugu helo ama inuu beesha caalamka uu qandaraasyo kaaga qaato waxa meesha ku baaba'ay marka dantii guud oo haddii ummadan loo helo isbaaradan in laga qaado oo dal loo dhiso inay dadku wax baran lahaayeen inay dadku skill yeelan lahaayeen inay dadku xirfado ay kalluunkooda kula soo baxa heli lahaayeen laakiin waxaad ogaataa intaas oo dhan 35 sano in ay niman gaar u xiran tahay oo bulshadu ay ood ku xareysan tahay meesha aad joogto aad ka hadlaysid wiilka 30 sano jira shaqo ma aado 30 sano jira habeenkii subaxii soo toosaa 12 duhurnimo markii la gaaray 2 kiilo qaado Kenya laga soo diray oo Saciid Cabdullaahi Dani iyo Xasan Sheekh iyo Cirre iyo percentage ku leeyihiin ayagu ay keensadeen buu qaataa daraagaas gurigiisa la aada
hooyadiis ayaa suuqa caano ula fariisata caanaha hooyadiis gaday ku noolyahay marka wixii laga qaado oo canshuur ahna waxay ku dhacdaa niman la yiraahdo nimanka isbaarada u taalo oo guriga garoowa degan nimankaasna cidna ma tiraahdo mushaarkiinu waa imisa iyo jeegiina yaa inay diray cidna ma tiraahdo marka fiiri bulshadaasi marka fiiri meeshaan ka hadlaya aniga ma ahan inaan shaqsi ka soo horjeedo haddii bulsho sidaa lagu hayo tarankeeda baaba'aysa indhaha ka dhacaysa way ka xaalufayaan dalka meeshii marka taasi ay kuu muuqan lahayd baa waxaa kuu muuqanaya faan yar oo meelna aan jirin oo waxaa ila aadaysaa halkaas iyo imbigati oo niman Maraykan iyo Western ay Soomaaliya inay ku soo duulaan system ah ay ku dhisanayeen aha leedahay hadda intaanu anaga isxalinay baanu Soomaaliya aadna leedahay marka isxalisay hadii lagu weydiiyo lagu yiraahdo dadka Puntland ku nool paycheck bishi weegi u soo dhacay imisu ah ima sheegi kartid waana isxaliyaa leedahay qabaa'iladu hubka isku ridayeen ma ka qaaday hadaan ku dhaho ma garan kartid waana isxaliyana waa leedahay marka niyo faankaasi Soomaaliya dhan buu dib ku hayaa waxaana xaqiiqo ah ninka faanaya caruurtiisa hilibkoodii buu cunayaa waxaan adiga madaxweynayaasha u taqaanado ku soo maray waxay hor istaageen malaayiin caruur oo ku dhalan lahayd hadday danta guud isbaarada ay u dhigteen ay ka qaadaan marka iska faan waa ogahay ayno wax aniga aan bedeli kara inaysan ahayn laakiin waxay ahayd wax aniga adigu intaan ka wada hadalnay isbaarada aan bulshadeena dhibtay aan ka qaadi lahayn marka isfaankaaga isaga jir alxamdulillah ilaahay baa halkaa ku gaarsiiyey waana kuu daynayaa maya intaan akhyaarta kale u gudbin aniga waxaan rabaa Soomaalida kuma warniyo waxaan la yaabanahay maanaa waalan mas'aadan baa laga heesayaa warniyo maanta dhan waxaa leedahay dad dhali lahaa hortaagan warniyo madaxdan hadda ay sheegaysay dadka iskuma guuriyaan dadkana ma kala furaan waxaa la rabaa ma ogtahay luqadda in la fahmaa la rabaa ma ogtahay meel khaldan in wax laga aado lama rabo dad baa xarankooda la hortaagan yahayda ma fahmine bal dadka intaa wixii Soomaali baa taa ma ogtahay Ingiriis ku hadlamayay dadka intaa wixii u taataabay u sharaxay waxa samaysaa bal qaabka ay u hortaagan yihiin dadka taranka isbaarada ay sheegaysid oo aan leedahay dadka isbaara lagu hayaa anigu waxaan ka hadlayno waa isteediyo Soomaaliyeed meesha waa maamul goboleed Soomaaliyeed ninbaa madaxweyne ka noqonaya waqtigiisa dhamaanay mid kala imaanaya laakiin waxa aan leedahay isbaara ku xiran oo dadka hadii isbaarada laga qaado waa ciyaal baa u dhalan lahaa oo dadka hadii isbaara waxba laga baran lahaa waxaan jeclaan lahaa adiga oo hadalka qeexayo si Soomaali u sharaxaya inaad sheegtid waxa kale oo aan rabaa inaad macnaha iyadana qeexid iikaadi waxaan kale oo rabaa inaad qeexid warbalikaada waxaan kale oo rabaa inaad qeexid ayadana marka aniga ay leedahay waxa ku soo maray oo aan leedahay madaxweynaha ku sheegaysid waxbay ma taqaanaa waa wax meesha inay kugu boobaan oo dad baabiya aniga meesha aan joogo tusaale markaan kuu soo isteedada kale shaqo kuma lihi marka meesha joogo kuu soo qaado aniga canshuur baa laga qaadaa canshuurteeda maxaa lagu sameeyaa amniga isteedka amnigeega looga shaqeeyaa jidadkaana loo kugu dhisaa oo markhaanti haddii wadanka joogtay haddii kale ka tahay in anagu hadda ku dhisano anagu muxuu ahaa meel kale meel caalam wax kama qaadano fatuud wax kama qaadano cid kalena ma naqaano canshuur baa nala ka qaadaa dadka shacabka laga qaadaa wadadana waa loogu dhisaa amnigooda waa loogu hagaajiyaa infrastructure-kooda iyo aeroboodada dekedahana waa lagu hagaajiyaa Soomaad garan intaasaa ku qabsanaa waxbarashana waa laga shaqaystaa dadkuna waa shaqaystaan waxa aan leedahay wiilkii soddonka jiray meel buu subaxii fadhiyaa habeenka gobolka ugu madoobaada haddii adigu negative abuuraysid oo sida anigu dee qofka afkiisa u furan laakiin waxaan rabaa dadka inay wax waaqi ay fahmi karaan inaad ka hadasho wariyo u kaadi bariikaadi dadku waxay fahmi karaan oo waaqac saa ka jira anaa tagay oo saasaan ku soo arkay anaa meesha ku arko khaladkaas ka jira waraad Ibrahim iikaadi ما هرت إبراهيم دقيسو إدريس صح هرت ما يدقيس ده برادة وكاغا بحي ما بحس ما هرت ما هرت بحس ما يدقيسو أنا كوان دي قلت معمولة هي فيري نتنا إبراهيم مسموه وكاغا بحي أنا هذا كي وان شاء الله أنا أسرع الصدوق ما بورت دقيسو قصيني هاي دقيسو إيكادي عادرو إيكادي ما هرت هذا هو المدحوني ومضى اللي قمص ورعليه دقيس إبراهيم إيكادي نيو وحو يهي إيكادي هذا كي أنا بسنة هلو والله كل الشغل ده ما راح ودني التيك توك لوجو كوزع وين سو وكان سو دايو
haddaad wixii ku hadlayso ku hadal marka waxaan rabaa hadalka intaan qaataan dib ugu soo noqdo waxaan ugu soo noqdana waxa weeye anigu marka aan rabo inaan wax sheego hadday negative yihiin point baa u sheega hadday positive yihiin point baa u sheega laakiin inaan jimlo guud oo negative inta yaaciyo ka tago ma rabo adeerano halkaas jooga waxa la iga qaada amni iyo waxa jidad iyo muxuu ah shaqo la igu qabtaa meeshaasaan joogaa Soomaaliya hadday hagaagaysana diyaar baan ahay wax ka qabto intii kale aniga ii gaarka ahayna waa ka shaqeynaya meeshaasaan joogaa laakiin dadka meesha jooga in macnaha aad qofkii ugu bahalagalso tiraahdo waxaasu saasu yahay ama hebel saasu yahay aniga hadda waxa igu tiri meesha joogto musuqmaasuqa ka socdo kuma muuqdo waxaan ku iri waayahay iyo calaamadii waxa ay tiraahdaa taasna saas u galay kaasna waxaas ku waxay taasna saas u qabtay laakiin haddii qofka iska iraahdo musuqmaasuq waa meesha ka socda yaanba waa dhihi karaa laakiin calaamad anu meesha aan ku sheegay waa ku calaamadiyay marka waxaan rabnaa dadka kale hadalka inta u gudbino inaan waxa khiyaaliga iyo negative-ka dadka lagu yaacinayo adeero ka deen wixii muuqdana sharaxno baana ka baxay dadkaas hadalka u daayay aad baad u mahadsan tahay injineerku kaama khaldana markuu ku yiri 800 oo kilomitir xasan oo ku jira waxa uu xadaya waa u jeeda laakiin deni iyo maamulka Puntland kuwa jooga waxay xadayaan uma jeeda dambi ma uusan galin waxa weeye meesha markii cadaalad laga hadlahayo waxa la rabaa oo aad oran kadhaa annaga dadka iyagu wax ma xadaan oo sharaf baan leenahay markii la arko ummadda wax loo qabanayo xasan iyo deni waxba isma dhaamaan deni halkaasuu 10 sano waddanka jooga dowladda Tiwaandaba uu taagnaa Soomaali ma rabno isagoo ay rabaysanahay Muqdisho laga dejiyay muxuu ka qabanayaa Muqdisho ma hooyadiisa joogta mise walaalihiisa jooga adiga muxuu ku sheegay shalay markuu noo sheegay wala xamar ha aadinina wuxuu noo sheegay in cadow dhalo ku yahay in reer Puntland nacab yahay in horumarkooda la nacab yahay maanta markuu tagay ma noo sheegay wixii shalay uu noo sheegay wuxuu ku beenay umaad ku aadahayo that means wax ka jiraan ma aha qabiil baa qalbiga ka jiifa wax ay Soomaali isdhaanta lama arko ninka la yiraahdo Sheekh Maxamed Nasharaf ma laha oo kii Axmed Madoobe inta la diriray oo ciidankii Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed isku baabi'iyay laha waaran baan u jaray weeye ninka la yiraahdo Axmed Madoobe maalintii dambana asoo madaxweyne qaran ku magacaaban sidii gabar yar oo dhoocilo foodley ah jikareerada soo ka shaqeyn la yiraahdo ord ka dekismaayo war ninkii ma heshiiseen dawladda Soomaaliya ma cafiday ma maamul goboleed baad u aqoonsatay ma wadaxayna midna uma jeegay asagoo isku qoslahayo tagay marka adiga waxaan isdhaamin oo aan qaymo lahayn oo aan sharaf lahayn oo muwaadiniin ahayn oo aan qayim lahayn hanoo kala amaanin ma faant oo waxa weeye magaciisi waxaad yeeshaa cadaalad ku dhimo oo cadaalad samee reer Puntland maxay haysaa waxa ma haysaa dadka gaajada ugu badan maanta u leeyahay waa iyaga xamar buu si orday maxaa xamar ka yaala dadka inuu biyaha u dhaamiyay loo qaatay hadba booyad la yimaado wixii dibad dalka yaalana wax ka sii wixii qurbaha jira dadkiisa uu siiyo ilaa iyagu madaxweyne u yahay xamar garanaysaa marka waxaan ku sheegayaa walaalle Soomaaliya cadaalad kama jirto waxba isma dhaamaan xasanna wuxuu haystaa dad dulleysan oo Ilaahayga abuurtayna warheed waayeelo arrimahan localka bacaaw dhadhan ma lahan dhadhan ma laha waxa gulka Chale arrimaha localka waxa u galnay wiil halkaana oo in adeerkiis isbaara u dhigtay baa wuxuu leeyahay Ismaaciil Cumar Geela isbaara ii dhigtay marka waxaan rabaa inaan isbaarada ka soo celiyo Ismaaciil baa ii dhigtay thank you Ismaaciil kan rabaa inaan tusiyo Ismaaciil afku furtay Ismaaciil dhageysan caaw Ismaaciil ma dhageysan laakiin hadda bal ka sheekay inuu dhahay wax baysa xoojinta Ismaaciil wuxuu yiri qosolkayga maanta nolosheeda saan u qoslo ma qoslin karo wuxuu Ismaaciil geerish baa naga furan geerish nolosheeda sidaan u qoslo والله geerish baa naga furan naga ma furna ma soo dhig anigu bes ma inuu bes والله nimayo kaam weyn baan furaynaa oo Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Qatar iyo Bahrain iyo Jordan horta nimankan horta guulaysan nimankan yiraahdo Iran nimankan horta waa la weeraray Arab dhamna waa weerartay wax muslim oo jira ma jiro dhulkan laga weeraray Mareykan ma ahan Cumaan baa laga weeraray Jordan baa laga weeraray Qatar baa laga weeraray Imaaraad baa laga weeraray meesha ugu badan laga weeraray airspace ugu badan la maraya waa ka Turkiga airspace Mareykanku isticmaalaya waa Turkiga marka wiikadi anaga Soomaali chance meesha ugu jiro warmaya horta chance ku jira
dareenka Soomaali ma dadka uu gaaray dadka ugu liitaa waa Soomaali hadda ku sheegay ورد ما قال horta balika aan ku siiyay هي انا كوضعي wuxuu ku gaarayaan ku sheegay horta marka aad leedahay muslim xor ah oo qayim leh oo sharaf leh oo dawlad ah oo madax bannaan oo bayskiisa laga duucaa dad awal bal la haystay ونمك عقليقود uu keenayo in guryahoodana Mareykan ka soo weeraro hadii ka taala xarumaha Mareykanka meesha la yiraahdaan waana ku soo xaqbi inay yiraahdaan maando cayaayirkaaga igada carabi waa naag hadii way in Cabdullah Xasan ma faham waxa ku soo hartay dhibaatada ugu badan inay Soomaali ku dhacayso nimankan Carbeed qaar baa cararahayo oo malaayiin dollar bay haystaan way aadan bay yaqaan Soomaali inta baxday ma ahan inta kale waxa ku dhageysa xabad baa ku dhageysa hadaan ilaahay nafsi khayr qaba keenin oo si degdeg ah arrin dhaqaale aawadeed hadaan loo joojin laana horta ko Mareykan iyo Yuhuud ma wadi karaan dagaalkan cid kula jirtaana ma jirto ma garatay reer Yurub ay isku halin jireen iyo Trump waa kala dhinteen Trump iyo Yuhuud baa loo kala tagay halkan waxa joogta nimankii la oran jiray China oo farsamadii iyo tacticadii iyo hubkiiba ka caawinaya nimankan oo under the table ah waxa imaanaysa marka xuutiyiintu dagaalka waa bilaabahayaan shiicadii waa la laayay Ciraaq oo waa ay duqeeyeen kuwii maxaan ku dhahay Xisbullah dagaalka waa galahayaan iyagu wadankii oo dhan waa ku ekayeen ballanqaadkii xaq ahaa oo ay sheegeen bay Iiraan samaysay marka Soomaaliya waxa imaanaya base u dhow in la helo oo ka dhow Soomaaliya waa ay uga dhowdahay Berbera base-ka military ay ku leeyihiin waa uga dhowdahay meesha la xuutiyiinta iyo hadii Ilaahay ku raayo Iiraan labadaba arada laga duqeynayo soo Fatima hadii la duqeeyana gantaalahan Cubayda iyo lagu garaacahay hadii Ilaahay ku raayo Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka iyo Soomaaliya maxay u yihiin waxba uma aha waxba isma tari karna marka inagu sidii yaan euro albaabka laga soo xirtay yaan ballaanka ka qeylina dadkeena mid dhintay mid dhaawac xitaa carabtana under base bay leeyihiin ay dadkooda ku xareystaan lacag bay haystaan isbitaalay haystaan wax u shaqeeya haystaan meel bay marka inagu dhaqaale ma haysano space ma haysano tala ma hayno aqli ma hayno hal xigmadaan leenahay waxa way reerkayga fiican maalinta baraka mala ay tagtana reerkayga fiican waxba ma goyso soo xafaantay ma xajar rag iyo waxa la rabaa meel la gala iyo farsamo iyo xigmad baa la rabaa laba arrimood marka labadu waa soo degdegayaan dagaalku inuu Soomaaliya soo gaaraan degdeg buu soo degdegaysaa aqoonsiga Soomaaliland degdeg buu soo degdegayaa iyadoo laga leeyahay baasiskaas Mareykan iyo Yuhuud oo iswataa inay ka duulaan lana yiraahdo Soomaaliya ma naqaan wadankan waa wadan xor ah halka taagan soo xafaantay maaha hawshaasi waa socotaa marka ha sugi waynina intaas aan ugu soo kordhinay aad baa horta waa yeelo deynaadar anaga bees nuguma yeelo horta been naga sheegay Ismaaciil bu ku dafray anagu qiri mayne anaga raashinka looga soo dejiyo ayaa nagu yaala saaxada mawlac baa idinku yaala idinka gaarsiinta ku yaala